diblomaasi media ayaa daawanaysaan kuna soo dhawaada qaybta wararka Soomaaliya. Villa Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka oo isku haysta Jubbaland iyo laba qodob oo soo ifbaxaya. Haddaba aan isla eegno qodobkan. Laga soo bilaabo bilowgii bishii hore ee Oktoobar, Villa Soomaaliya iyo mucaaradka madasha samata bixinta ayaa ku lacdamayay sida qolo kasta ajandaheeda siyaasadeed ay meelmar ooga dhigi lahayd. dhankeedana xulafooyinkay u badsan lahayd. Madaxweyne Xasan ayaa dadaalkiisa oo dhan isna isugu geenaya sidii uu heli lahaa dhanka Jubbaland. Axmed Madoobena dib ugu soo celin lahaa madasha wadatashiga qaran. Villa Soomaaliya waxay sheegaysaa shirkii Nairobi ka dhacay bilowgii bishii Oktoobar u dhalay in madhaleys uu noqdo safarkii madaxweynaha ee Kismaayo. kadib markii dhanka Puntland ay go'aamisay in la dhiso golaha mustaqbalka Soomaaliya oo lagu daray Jubbaland, taasoo micno ahaan bixisay xisaab siyaasadeed oo meesha ka saartay suuragalnimada in damaca dowladda federaalka uu ka hirgalo dhanka Kismaayo. Laba safar oo uu madaxweyne Xasan Sheekh isku maray Addis Ababa ilaa Nairobi wali waxay u muuqdaan inaysan natiijo badan keenin. Haddana mar kale waxa ay golaha mustaqbalka Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ku loolamayaan in isla aagii Kismaayo bishan bilowga ee November. Qaar ka mid ah saaxiibada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaya in meelmar ay ka dhigayaan ajandahooda in Axmed Madoobe laga saaro golaha mustaqbalka oo uu safkooda galo, ayna ogol yihiin inay bixiyaan qiimaha ay ugu kacayso taasi. Laakiin sida ay meelmar u noqon karto weli dood iyo hubanti la'aan xooggan ayaa ka jirta. Ila wareedyo wargal ayaa u sheegay warbaahinta in qaar ka mid ah madaxda dowladda ay u sheegeen wakiilada caalamiga ah ee Soomaaliya oo lagu daray dalalka deriska qaarkood in Villa Soomaaliya ay aqoonsi buuxa siinayso dhanka Jubbaland, balse ay marka koobaad tahay in Axmed Madoobe tago Muqdisho, halkaasna wadahadal siyaasi ah lagu yeesho. balse taasi waxaa lagu fasiray dhacdo aan si fudud dhanka Kismaayo meelmar aan uga noqon karin. Villa Soomaaliya laba qodob ayay u ogashahay Axmed Madoobe, maxayse ku bedelanaysaa? Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u sheegay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada safkiisa ku jiro inuu quudareynayo is-aragga ugu hore ee Nairobi oo kula yeelanayo madaxda Kenya ay ka wada hadli doonaan sidii is-arag kale oo ay u yeelan lahaayeen Axmed Madoobe, loogana dhigi lahaa mid ay ka soo baxaan go'aano hor u socod leh. Taas waxaa lagu fasiray in madaxweynaha ay ka go'an tahay inuu si buuxda isku dhiibo, laakiin weli uusan aqoonin waxa Jubbaland uu ka heli karo. Laba qodobba Villa Soomaaliya waa dooraysaa, balse su'aal xooggan ayaa dhanka Kismaayo ka imaanaysa oo aan jawaab loo hayn. In lagala shaqeeyo doorashada tooska oo Kismaayo ay ka mid noqoto meelaha ay ka howlgalayaan guddiga doorashooyinka, taas oo lagu dhex daray muddo kororsi 2 sano oo saaxiibada madaxweynaha ah ay karkarinayaan kana shaqeynayaan sidii ficil loogu bedeli lahaa, iyo in Axmed Madoobe dib ugu laabto madasha wadatashiga qaran kana haro golaha mustaqbalka ee Soomaaliya. Xasan Sheekh waa uu diidan yahay in loo midoobo. Qaar ka mid ah saaxiibada madaxweynaha oo ay la hadashay warbaahinta waxay sheegayaan inay ka dagaalamayaan in Kismaayo martigeliso bishan gudaheeda shir ay isugu imaanayaan golaha mustaqbalka Soomaaliya, iyadoo hadda la magacaabay guddiga qabanqaabada ee dhinacyadu ay soo kala dirsadeen min 2 xubnood ka kooban. Falanqayaasha ayaa sheegaya in fursad mar la arag ah ay si fudud ku lumiyeen dhanka madaxweyne Xasan Sheekh, taasoo ahayd markii uu tagay Kismaayo. Ilaa haddana aan la aqoonin nuxurka ah safarkaas Xasan Sheekh iyo Villa Soomaaliya dhibco siyaasadeed ku qaadan kartay, taas oo ay aad uga walwalsanayeen dhinacyo kala duwan. Guddi kala matalaya mucaaradka samata bixinta Puntland iyo Jubbaland ayaa leh wada hadallo ay ugu gogol xaarayaan qabashada shirkan oo madashiisa laga dhigay Kismaayo, laakiin taasi dowladda federaalka waxay u aragtaa arrin aan u wanaagsanayn oo siyaasadeeda soo gabagabayn karta, wayna ka dagaalamaysaa. Madaxweyne Xasan Sheekh oo hore uga caraysnaa kulanka Nairobi golahan looga dhawaaqay isla markaana jahwareeriyay safarkiisii Kismaayo, wuxuu doonayaa in ka hor shirkan uu aqbalo shuruudo Axmed Madoobe si meelmar looga dhigo, isla markaana aan loo midoobin mashruuciisa doorasho, sidaas oo kaleetana albaabada aanay u soo xirmin. Dhinacyada Puntland iyo madasha samata bixinta Muqdisho waxay iyaguna dadaal ugu jiraan sidii meelmar ay uga dhigi lahaayeen shirkooda, meesha uga saari lahaayeen ajandaha Villa Soomaaliya. Waana aag xasaasi ah oo ay qolo kasta doonayso inay teeda ka dhigto biyo kama dhibcaan. Waa loolan aan waxba la iskula hari doonin, laakiin natiijadii cidda gacanta ku haysa ayaa ah dhanka Axmed Madoobe iyo Jubbaland. Maxaa dhacaya? Guul iyo guul darraba. Madaxda dowladda federaalka haddii dhankooda ay xaqiijiyaan in Axmed Madoobe ay ku soo celiyaan madasha wadatashiga qaran, isla markaana ay helaan ballanqaad ah inuu kala shaqeeyo doorashooyinka soo socdo oo lagu daray muddo kororsi farsamaysan, waxaan shaki lahayn inay u tahay rubic siyaasadeed oo wax badan ka bedelaya xisaabaha hadda isku bilqan ee miiska yaala.
ha yeeshee haddii ay guuldarro timaado fashilmaanna dadaalada socdaa waxay uga dhigan tahay laba geeriyood aan la isku naxariisan doonin iyadoo xisaabta laga eegi doono wax kasta inay soo koomayaan madaxweyne xasan sheekhna daalac loogu raacan doono inuu joojiyo mashruuciisa siyaasadeed ee hadda qalan oo ah kan hadda ugu muhiimsan ee kaararka gacantiisa ku jira haddii madasha samata bixinta ee Puntland looga guuleysto dhanka Jubbaland in lagala dhaxbaxo waxay uga dhigan tahay dhankooda in aysan xaalka uusan ku fiicnaan doonin sababtoo ah waa culays xoogan Villa Soomaaliya inay isku aadisato afarta dowlad goboleed ee koonfurta dalka taasi oo micnahaan ka dhignaanaysa in dooda mucaaradka ee fagaarayaasha caalamiga ah ay noqonayso mid aan loo soo joogsan karin sidaas oo kale dhanka Puntland ayaa culays ku noqon kartaa kaligeeda in doodaha waaweyn ay la falgasho inkasta oo aysan markii koobaad u ahayn dhanka Garowe balse xisaabta haddii ay isku rogto saddexley oo ah in shirka golaha mustaqbalka uu ku qabsoomo Kismaayo xasan sheekh ku fashilmo safarkiisa inuu ku daro Axmed Madoobe waxaan shaki lahayn in la aaday jihada la yaqaano dhamaadkeeda oo ah in madaxtooyadu ku qasban tahay in dhinacyadan ay kala heshiiso nooc kasta oo doorasho oo aysan dooq badan lahayn taas oo micno ahaan ka dhignaanaysa in la mari doono isla jidkii 17 Sebteembar ee farmaajo banaanka laga dhigay hanaanka doorashada ilaa laga soo gaaray May 2022 Faarax Abdiqaadir ee warbixintaasi diyaariyay markana warbixin kale oo ku saabsan farmaajo iyo imaanshihiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu dhawaan tago magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Farmaajo waa nin garbihiisa ay ka muuqanin inta badan kooxdii u dhistay xukunka Villa Soomaaliya doorashadii 2017 ayaa mar kale tijaabinaya damaciisa Soomaaliya dhismaha saaxiibo cusub iyo olole ka duwan halkii nuuc ee la adeegsanayay saddexdii doorasho ee ugu dambeysay Muqdisho waxaa ku sugan mucaarad kale oo ku midaysan madal la yiraahdo samata bixinta dad badan waxay isweydiinayaan muxuu Farmaajo la imaan doonaa marxaladan cusub maxayse wadaagi karaan ama ku kala duwanaan karaan mucaaradka la baxay samata bixinta iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka laga tago in laga midaysan yahay diidmada Xasan Sheekh iyo nidaamkiisa haddana waxaa jira dhowr qodob oo la filayo in Farmaajo uu kaga duwanaan doono mucaaradka xamar hore u sii joogay midda koowaad waa arinta dhulalka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dad badan ka kicisay dhulkii ay deganayeen waxaana arintaasi ka dhalatay cabasho shacab oo xoogan laakiin doodii dhulka ayaa micna beeshay markii musharaxiinta madasha samata bixinta ku jira ee dana siyaasi ah iyo olole shakhsi ah ay u bedeleen xaq u raadintii shacabka ilaa ay markii dambe la gaartay inay toos u weeraraan madaxweynaha habka ay madasha samata bixinta u wajahday arinta dhulalka waxay dhalisay inay sii doogto xaqii dadka iyadoo cabashada isu rogtay olole siyaasi ah iyo meel laga kaluumaysto Farmaajo ma moogana qodobkan laakiin lama filayo inuu u wajihi doono si la mid ah sidii ay u wajahday madasha samata bixintu ee lumisay xaqii dadka maadaama uu haysto Farmaajo diiwaan ah inuu ka leexday shacabkii deganaa dhulka dowladda intii uu talada dalka hayay waxaa la filayaa in Farmaajo uu la kulmi doono shacabka 3 sano ee la soo dhaafay laga saaray dhulka dowladda una dhageysan doono cabashadooda kadibna uu taladiisa soo jeedin doono ama uu madaxweynuhu kulan toos ah kula wadaagi doono iyadoo ay ka maran tahay aflagaada shakhsiyadeed qodobka labaad waa arinta hub urursiga iyo dhiirigelinta inuu dhiig ku daato caasimadda iyadoo ay 3 ka mid ah xubnaha madasha samata bixintu aad ugu baxsanayaan in madaxweyne Xasan Sheekh gacan militari lagu bixiyo ayaa xubno ku dhow madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay u sheegeen warbaahinta in Farmaajo uusan qabin in fowdo xukunka lagu raadiyo waana qodob kale oo muhiim ah oo uu Farmaajo kaga duwanaan doono mucaaradka kale oo uu sumcadna ku heli karo qodobka saddexaad waa boqorida Axmed Madoobe iyo Siciid Deni sida la soo warinayo Farmaajo hadda colaad gaar ah uma qabo Siciid Deni iyo Axmed Madoobe laakiin dhanka kale ma qabo in madaxweynayaal hore iyo ra'iisul wasaareyaal hore inay isku qabjibiyaan oo ay isu dhul dhigaan madax heer gobol ah
wuxuu aaminsan yahay Farmaajo sidii ay sheegayaan saaxiibadiis in codka uu heli karo xildhibaanada imaan doono baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya cid walba oo soo qorata oo ay dadku qiyaar leeyihiin taasina aanay ku qasbi karin inuu micno tiro maqaamkiisa isagoo qancinayo madax heer gobol ah. si walbaba iyadoo aan weli cadeyn xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa dhanka kale siyaasiyiinta qaar waxay u muuqdaan kuwa